asaga cadeeyo Kenya oo dhamaan masuulahay oo Soomaaliya masuulahay oo waxaan u ahay muslimiinta masuulahay anaga ma Kenyaan baan ahayn hadaan nahay Suufiya aan nahay ama aan sunna nahay ma Islaam baan ahayn muslimiin aan ahayn ma maxaan ahayn Kenyaan baan ahayn intiiba uu naga saaray culimadu waxay cambaareenayaan hadal ka soo yeeray jimcihii wasiirka gaashaandhigga dalkani Kenya mudane Aadan Barre Ducaale hadalkaas oo wasiirku ka sheegay masaajid uu furayay oo ku yaala magaalada Tani Mandheera gaar ahaan xaafadda Busley hadalkaas oo wasiirku uu sheegay wuxuu ahaa mar uu ka hadlayay masaajidka iyo maamulkiisa in masaajidka maamulkiisa laga ilaaliyo ama aymadiisa iyo ragga imaamnimada ka noqonaya laga ilaaliyo suufiyada iyo takfiirka waa sidoo hadalka u dhigay wasiirka culimadu waxay cambaareenaysaa in wasiirku isbarbar dhigo takfiir iyo marka ayada ahlus sunna wal jamaa lambar 3 culimadu waxay cadeynaysaa in hadalkaas wasiirku uu yiri uu keeni karo iska hor imaad bulsho oo aan ciribtiisa dambe lama hadinin lambar 4 waxay culimadu ugu baaqaysaa wasiirka in hadalkaasi uu raali gelin ka bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan lambar 5 waxay culimadu ugu baaqaysaa wasiirka in uu ilaaliyo midnimada wadajirka ummadda islaamka ah muslimiinta ee Kenyaanka ah hadii uu hadalkaasi sida uu yiri uu gaf uga soo baxay wasiirka culimadu waxay ka codsanaysaa in uu raali gelin ka bixiyo wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waxaan cambaaraynaynaa oo iskugu maadnay meeshan maanta inaan ka hadalna wargaf wasiirka difaaca wasiirka gaashaandhigga Kenya uu sheegay masaajid la furay magaalada Mandheera dhaxdeeda khaasatan Bolo Busley masaajid laga furay masaajidka dhaxdiisa khudbad uu ka jeediyay wasiirka ayaa wuxuu yiri masaajidka laga ilaaliyo ahlus sunna wal jamaa suufiyada saas uu yiri waliba eragaas uu isticmaalay ahlus sunna wal jamaa iyo takfiirka masaajidka laga ilaaliyo dhahay masaajidka maamulkiisana hal la ilaaliyo dadkaadna hal laga ilaaliyo wasiirka markuu ugu horeeyay waan cambaaraynayna intaanan cambaaraynin ka hor waxaan u sheegaynaa inuusan taariikhda ahlus sunna wal jamaa uusan ka warhaynin ninkii taariikhda ahlus sunna wal jamaa nin aqoonta diinta ay ku yartahay inuu yahay ayaan kulka hor u sheegaynaa sababta waxa way ahlus sunna wal jamaa diinta asalkeedii way dadka diinta asalku u ahaay waaya nabiga laga soo bilaabay calayhi salaatu wasalaam aymada islaamka oo dhan afarta madhab oo islaamka macnaha aymada islaamka oo dhan inta diinta islaamka madax u ahayd oo dhan kulli ka soo shaqeysay waxay kamid ahaayeen ahlus sunna wal jamaa taas marka waxa ku kaliftay inuu yiraahdo masaajidada laga ilaaliyo taariikhda ahlus sunna wax kama yaqaan horta saasaan leenahay mid labaad wasiirka wuxuu sheegay in ummadda Kenya muslimiinta Kenya gobolka waqooyiga bari muslimiinta joogto inuu mas'uul ka yahay oo Soomaalida ah guud ahaan muslimiinta Kenya joogtana uu mas'uul ka yahay wasiir u yahay ummadda Kenya dhamaantoodana uu mas'uul ka yahay warkaas meesha dhaxdeeda sidaas uu ku sheegay laakiin haddana hadalkiisa waxa ku cad inuusan matalin muslimiinta gobolka waqooyiga bari ee muslimiinta Kenya joogto ahlus sunna waxay kamid yihiin shacabka Kenya waxay kamid yihiin dadka gobolka waqooyiga bari degan saadaradeed marka waxa waaya ummadii as mas'uulka ka ahaay oo mas'uulan u ahay muslimiintan matala uu dhahaayay inuusan matalin oo qaarkood mas'uul uu ku yahay laakiin qaar uusan matalin asaga ayaa cadeey wasiirka waxaan leenahay hadalkaas hadal meel ku dhac waaya raali gelin ha ka bixiyo in diinta ma arkaysa waxa waaya asagoo wasiirkii gaashaandhigga inuusan shacabka ummadda Kenya degna dhaxdeed inuusan dhaxdhaxaad u ahayn waxa la rabay ninka madaxda inuu dhaxdhaxaad ahaado muslimiinta dhaxdooda dhaxdhaxaad u ahaado dhaxdhaxaad maaha waa nin ma arkaysa mowqifkiisa wuxuu ku cadeeyay inaad xisbi gaar yahay group gaar u yahay waxaan ognahay wasiirka in inta badan diinta islaamka uu ka hadla meelo badan uu yiraahdo ana diinta islaamka in difaaca diinta islaamka kor yeela dhaqaale badan oo u ururiyo ummadda muslimiinta waxaan u sheegaynaa oo dhaqaalahaas bixisa gobolka waqooyiga bari muslimiinta joogta dadka degan dhamaantood madaarista lama wada dhis lacagtaas madarisada si siman looguma dhis masaajidadana si siman looguma dhis dugsiyaalkana si siman looguma dhis qaar kamid baa la dhisaa qaarna waa la dayacaa ugu dambeyn warkii gunaanadkiisii wixii asaga gurubkiisa oo xisbigiisa oo la socdi oo lahay masaajidka hal la ilaaliyo
inta iidaad waxay gacanta ku hayeen unbaa la dhisaa munaasabna ma aha macquulna ma aha nin madax ah oo ummadda dhan u dhexeeya mas-uulan ka ahayna leh inuu saas u hadlo war ku habboon maaha ugu dambaynta ahlu sunna waljamaaca waxaan leenahay arrintaas arrin wasiirka inaad dhahay ma arkaysaa ku habboon ma aha arrintaas raalligelin ha ka bixiyo dadka ahlu sunna waljamaaca oo layidhi masaajidada ha kusoo tukunin masaajidada ha laga ilaaliya layidhi dadka jiiraan ay masaajidka la yihiin taas waxay tusinaysaa in masaajidada laftoodii la dhisahaya dadkana loo diidahayo laga mancinhayo maxaa jira ninka masaajidka hadaa layidhi ha soo gelin maamul aska noqonin ha laga ilaaliya haddii layidhi salaadan isku soo tukunin waayo waxaa kaloo aada u liidan oo aada u yaab leh ahlu sunna waljamaaca oo diinta meeshay ugu soo halgameen la ogyahay meeshay diinta ka joogaanna la ogyahay waxay diinta islaamka usoo qabteenna la ogyahay oo salafu saalixi ilaa yowmina haada diinta islaamka u khidmaynahay in la barbar dhigo takfiir oo dadka gaalaysiinaya masaajidada aan ku soo tukunin xoolihii islaamka ay gowracaan aanan cunaynin oo koox fallaaga ah lagu sifeeyo lala barbar dhigay taas idaana waxa waaye wax aad iyo aad u liidan waaye waa wax aad iyo aad u xun warkaas war aad iyo aad u xun waaye ahlu sunna waljamaaca masaajid ay leedahay gobolka waqooyi bari waa joogtaa meel kastoo waddanka ka mid ay joogtaa diinta iyo dacwadana way wadaa masaajidana way lihiin madaarisna way lihiin dugsiyaalna way lihiin diinta kuma ganacsadaan diintooda waxa waaye ilaahay dartiis waxa qariyo waxa waaye diinta ilaahay dartiisa ay ugu camal falaan ilaahay dartiisa ay dadka u baraan waxooda ma arkaysaa lagama dhiga wax lagu camal falaayo ilaahay dartiis loo samaynayo waa wixii qari marka ahlu sunna waljamaaca oo qaylidooda yareey socodkooda iyo banaanka ay u imaan wayaan waxa waaye waxay aaminsan yihiin ahlu sunna waljamaaca waxay aaminsan tahay diintan in ilaahay dartiisna loo barto ilaahay dartiisana looga camal fala ilaahay dartiisana ummadda loo gaarsiiyo laakiin in diinta wax lagu bixiyo wixii lagu bixinaana xayisiis laga dhigay lagu raasada dhaqaalo lagu raasada wasfiga ahlu sunna ka mid maaha hadda ii warka ii gunaanadkiisa waxaan leenahay ahlu sunna waljamaaca haddaan nahay arrimahaas noocaas ah wasiirka ha ka waantooba ha ka fiirsada hadalka uu samayna dhacdada uu samayna raalligelin ha ka bixiya masaajidka la furaya keliix maaha dhowr dhacdo iyo dhowr shir ayuu sidaa ka dhahay waa in suufiyaalka macnaha meesha ay ka muuqdaan maaha in laga joojiyo waay meelo badan buu ka dhahay suufi lama joojin karo suufi ahlu sunna waljamaaca waa isku tool lama joojin karo bulshaday ka mid yihiin haddii bulshada in la kala saaro oo laisku diro hadduusan doonaynin ahlu sunna waljamaaca bulshaday ka mid yihiin culummada waddanka ay ka mid yihiin marka ummadda islaamkana taas ha ogaata arrintaas arrin aan ogolnay maaha arrin nin mudane ee macnaha wasiir ah arrin mas-uul war uu ku hadli kara maaha ninka mas-uulkoo sidaa u hadlina waxaan leenahay ninkaas iyada ee mas-uulnimadiisa waa naaqis nin mas-uulnimo noqon karo ummadda matali kara maaha asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu sidii haddaba culimmadu ay ka hadashay ahlusunna waljamaaca wasiirka amniga waddanka kenya aadan barre ducaale hadalkii ka soo baxay ayay culimmadu qoonsatay maalintii jumcadii ee masaajidka gafanihii hore cali roobo uu dhisay la furayey hadalkii uu isgarab dhigay takfiir iyo culimmada ahlusunna waljamaaca oo uu yidhi suufiya iyo ha laga ilaaliyo imaamka masaajidka la keenayo suufiyo iyo takfiir takfiir waa dadka annagu hadda takfiir nool oo masaajidyo haysto oo dadka horboodahayo oo ma aanan arag sheeko unbay nagu tahay takfiir baa jira shaksi la arkay oo leh wixii la gowraco dadku muslimiinta gowracaan cuni mayna waan aragnay laakiin takfiir socdo oo masaajidyo haysto oo ummad hogaaminayo dugsiyahaya maanan arag ayagaa sheegi doona meeshay ku arkeen ay awooddaa ku leeyihiin laakiin dadka loo jeeda waa ahlusunna waljamaaca oo takfiirka la takfiirin hayo marka waxaan ka xumaanay annaga oo haddaan nahay culimada ahlusunna waljamaaca in takfiir oo islaamkii dhan maaragtay ka duwan oo wixii muslim sheeganhayaba gaal u yaqaana in lasoo garab dhigo wasiirku uuna soo garab dhigo asagoo oo waddanka kenya mas-uuliyiinta ugu waaweyn maanta ka mid a haddana hadalkiisii ka dambeeyey uu yidhi markuu yidhi takfiirka iyo suufiya ha laga ilaaliyo imaamyadii la yaqaanay ha masaajidka la keeno shareecada islaamka iyo kitaabka qur-aanka iyo xadiidka nabigana ha lagu dhaqo wax kalena yaa lagu darin macnaha annaga diintaa wax ku daraa buu naga dhigay
marka halkaas waan cambaaraynaa waana ka xunnahay marka waxa weeye wasiirku inuu dad gaar la safto wax aan aad uga xunnahay weeye asaga mas'uulka waxaa laga rabay wasiirka inuu dastuurka Kenya inuu ilaaliyo dastuurka Kenya waxa weeye nin kasta wuxuu aaminsan yahay oo gaalu mas'uul yahay wasiir wuxuu yahay gaalo asaga cadeeyo Kenya oo dhammaan mas'uulahay oo Soomaaliya mas'uulahay oo waxaan u ahay muslimiinta mas'uulahay anaga ma Kenyaan baan ahayn haddaan nahay Suufiya aan nahay ama aan sunnanahay ma Islaam baan ahayn muslimiin aan ahayn ma maxaan ahayn Kenyaan baan ahayn intii buu naga saaray gaalada inuu mas'uul yahay uu sheegay gaalo ilaahay qeyrkii caawdo dhagax meel u yaala buu inuu mas'uul yahay sheegtay anagina wuxuu leeyahay la iska ilaaliyo marka waxaan leenahay mas'uulka uu ku nagu dhacay meel oo maartay hadal aan loo baahnay buu yiri oo aad maartay aan uga xumaanay ha ka soo noqdo ha ka cudur daarto ma cambaaraynayno oo xumaan uma qabno waa ninkii mas'uulka anaga ahaa laakiin inuu gurub qaar la safto laga marhabin ha ka soo noqdo intaas aan leenahay. Wassalaamu calaykum.